barnaamijka waxa aynu maanta ku falanqayn doonaa weerar safmareen ah oo mar qura lagu qaaday ciidamada militariga ee Israel ee ku sugan waqooyiga Israel, wadanka Suuriya, Gaza iyo wadanka Lubnaan. Saldhigyada ciidamada cirka iyo kuwii dhulka ayaa cagta la mariyay, khasaare weyn ayaa la gaarsiiyay militariga Israel tan iyo shalay oo Jimco ahayd. Barnaamijka ayaanu ku falanqayn doonaa. waxaanu kaloo falanqayn ku samayn doonaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israel ee xilka laga qaaday isla markaana hadda dagaal weyn uu kala dhaxeeyo. Ra'iisul wasaaraha Israel ayaa mar kale banaanka soo dhigay cadeymo cusub oo muujinaya inaanu jirin sabab ay ciidamada Israel ay weli ay u sii burburiyaan magaalada Gaza. Dowladda Ukraine waxa ay joojisay heshiis dhanka hawada oo dowladda Iran kala dhaxeeyay. Arrintan Mareykanka ayaa gadaal ka riixay, waynu falanqayn doonaa. bal marka hore barnaamijkeena aynu ku bilowno weerar safmareen ah ayaa mar qura waxa lagu qaaday saldhigyada ciidamada militariga ee Israel ee ku yaala waqooyiga Israel, wadanka Suuriya, gaar ahaan buuraha Golan Heights, magaalada Gaza iyo koonfurta wadanka Lubnaan. Khasaare weyn ayaana la gaarsiiyay militariga Israel. weerarkii koowaad waxaa fuliyay diyaarad drone ahaa waxaana lagu qaaday buuraha Golan Heights ee koonfurta wadanka Suuriya, halkaas oo dabcan khasaare lagu gaarsiiyay militariga Israel. gaar ahaan waxaa la weeraray saldhig ciidamada cirka ee Israel ay buurahaasi ay ku leeyihiin. weerarkii labaad isla diyaarad kale oo drone ahaa oo kasoo duushay wadanka Lubnaan ayaa fulisay, waxaana ay weerartay saldhig ciidamada cirka ay ku leeyihiin waqooyiga Israel. khasaare ayaana lagu gaarsiiyay halkaasi militariga Israel. sidoo kale waxaa la sheegay in duqeyn kale oo madaafiic ah lagu garaacay saldhiga ciidamada Israel ay koonfurta wadanka Lubnaan ay ku leeyihiin isla maalintii shalay oo Jimco ahayd, salaadii Jimcaha kadib. waxaana weerar kale uu ka dhacay oo lagu qaaday saldhigyo militariga Israel oo bambaanooyin ah magaalada Gaza oo weli ay burburinayaan ciidamada Israel. haddaba Israel oo weerarkaasi safmareenka ah ka cabanaysa isla markaana khasaare xooggan uu ka soo gaaray ayaa duqeymo xagga hawada ah waxa ay ku dishay askar ka tirsan kuwa dowladda wadanka Suuriya, waxaana ay burburisay kaabayaashii dhaqaalaha meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab ee wadanka Suuriya ayayna duqeysay. haddaba waxa aad loo cambaareeyay Israel inay Gaza soo burburisay, Lubnaan ay burburinayso, haddana wadanka Suuriya ay ka bilowday in ay duqeymo ay ka geysato. dhinaca kale ciidamada Israel ayaa duqeeyay iskuul ku yaala xaafadda Tufax la yiraahdo ee magaalada Gaza ee waqooyiga Suuriya, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 3 qof oo ay ku jiraan caruurtii halkaasi wax ka baranaysay. haddaba weerarkaasi safmareenka ahaa ilaa 7 askari ayaa ku geeriyooday marka loo fiiriyo buuraha Golan Heights ee wadanka Suuriya, koonfurta wadanka Lubnaan, waqooyiga Israel iyo magaalada Gaza. Israel iyadoo ka jawaabaysa ayay duqeysay ciidamada militariga ee wadanka Suuriya meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Xalab. haddana waxay mar kale duqeysay iskuul caruurta ay wax ku bartaan oo xaafadda Tufax ee magaalada Gaza ku taala. dhinacan iyo siyaasadda haddii aynu fiirino wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israel oo xilka laga qaaday ayaa u sheegay qoysaska maxaabiista Israa'iiliinta ah ee ku jira gacanta kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin inaysan haysan wax qiil ah oo ku aadan in ciidamada militariga ee Israel ay ku sii sugnaadaan ama ay sii burburiyaan magaalada Gaza. waxa uu sheegay in aysan jirin wax sabab ah oo u haray. ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu isaga ayaa hortaagan xabajoojinta iyo maxaabiista in la soo celiyo. ma jirto wax u haray ama wax ka haray Gaza oo hadda la sameyn karo. ciidamadii meel kasta ay joogaan, hase ahaatee weli way awoodi laayihiin inay soo saaraan maxaabiista halka ay ku sugan yihiin. waa in ciidamada ay halkaasi ka soo baxaan ayaa uu yiri. waxaa kaloo uu sheegay in aysan rajo u harin dadka ehelkooda ay maqan yihiin, isla markaana looga baahan yahay hadda inay cadaadis weyn ay saaraan ra'iisul wasaaraha Israel maadaama ay yihiin awood, isla markaana Netanyahu ay maxkamad ay soo saaraan. dhinaca kale haddii aynu fiirino dowladda Ukraine ayaa joojisay heshiiskii hawada ee dowladda Iran kala dhaxeeyay. waxaa sidaasi ku dhawaaqay xogayaha joogtada ee golaha wasiirada ee dalkan la yiraahdo Ukraine 8 November oo shalay ku beegneed. heshiiskan waxa uu labadan wadan uu ka dhaxeeyay ilaa bishii June 1993. haddaba 9 September wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa waxa ay u yartay sihayaha arrimaha sihayaha safiirka dalka Iran ee wadanka Ukraine kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Iran laga yaabo in gantaalada plasiga la yiraahdo ay siisay wadanka Ruushka.
haddaba inkastoo ruushka iyo iiraan uu xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo, maraykanka waxa uu cadaadis ku saarayaa dalka Ukraine inay xiriirka gebi ahaanba ay u jarto wadankan Iiraan oo xiriir wanaagsan hadda uu kala dhexeeyo dhinacan iyo wadankan la yiraahdo ruushka oo xiriirkoodan uu aad u wanaagsan yahay. haddaba aynu eegno tan iyo shalay salaadii jimcaha kadib duqeymihii iyo wararkii ugu waaweynaa dhinaca khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaraya duqeymaha Israa'iil. shalay ciidamada Israa'iil 12 waxay fuliyeen weerar oo Beirut koonfurteeda ay ka sameeyeen 30 qof ay halkaasi ku dileen, sidoo kale 40 qof ayay dileen, 123 kalena way ku dhaawaceen duqeyn 24 saac ee la soo dhaafay Gaza ay ka sameeyeen. marka Lubnaan waxay ku dileen 30 qof halka Gaza ay ku dileen 40 qof, waa 70 qof. dhaawacyadana waa 150 marka la isku daro duqeymaha Beirut iyo sidoo kale Gaza. sidoo kale 70% duqeymaha Israa'iil ee Gaza dabcan dumarka iyo caruurta ayaa ay ku dhamaanayaan oo waxyeelada ka soo gaarayaan, sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku waramayso. daawadayaal, macluumaadkan waa kuwa hadda ugu waaweyn bariga dhexe. si aad u hesho kuwa kale, fadlan subscribe saaro channelkan oo ku xirnaaw. mahadsanid.